السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Future Perfect. Future Perfect oo ah dhacdada 11aad halkaasoo hal dhacdo oo keliya inoo hadhay oo tii 12aad ah insha Allah. Marka hadaba waxa isweydiin mudan waa maxay Future Perfect, waqtigee la adeegsadaa? What is the future perfect tense and what's used for? What is the future perfect tense? Waa maxay future perfect tense and what's used for? Maxaana loo isticmaalaa? Future perfect is used to express an action. Future perfect waxaa loo isticmaalaa to express in lagu sheego lagaga hadlo an action ficil which is expected to be completed by a certain point of time in the future. Which is expected kaas oo la filayo to be completed inuu dhammaystirmo by a certain point of time in the future. Waxa uu dhammaystirmayaa waqti cayiman oo ka mid ah mustaqbalka. ugu horeyn horta tenniskan waxaa la isticmaalaa marka aad ka hadlayso hawl aad rajaynayso inaad dhammaystiri doonto waqti adigu aad ogtahay. Tusaale, iminkoo kale saaxiibka ayaa kugu yiri waxaan doonaya inaan shaqada kugu imaado abaare 8 habeenimo. Marka maxaad leedahay? 8 shaqada waan ka rawaxay. Okay, marka tenniska aad adeegsanaysaa waa kan. Haddaba marka maxaad odhani marka saaxiibka ku yiraahdo oo kaleeto, my friend, I want to meet with you at 8 p.m. How do you see? Saaxiib, waxaan doonayaa inaan kula kulmo 8 habeenimo sidee u aragtaa? Waxaad ku jawaab celinaysaa, sorry my friend, I will have left at the office at that time. Waan ka xumahay saaxiib, waan ka tegay office-ka xilliga isaga ah. Haddaba waxaynu sidan ka sii ballaaran insha Allah ugu fahmi doonaa tusaalayaashiisa aynu guda galno. Affirmative form, qaabkii caadiga ahaa subject plus will, shall plus have plus past participle plus subject. Tusaalaha koowaadna waxaynu odhanayaa sida tan, I will have finished my work by June. I will have finished waan dhameeyeyba, waan dhamaystiray my work by June. Shaqadayda waan dhamaystiray bisha June. Tusaalaha xiga, you will have played it tomorrow. You will have played waad ciyaartay it iyadoo ah markaa kubadii. Waad ciyaartay kubadii tomorrow. Bari waad ciyaartay kubadii. Okay, wax lagaga baahan yahay tusaalaha koowaad inaad ku fahanto. Haddaad ku fahmi weydo ka labaad, haddii kale ka saddexaad, intaad ku fahmi weydo fadlan la soo xiriir macalinka, la hadal, u sheeg weak points-kaaga ama wixii errors kuu keenaya. Aynu ku sii soconno tusaalaha xiga ee saddexaad. We shall have finished this course next year. We shall have finished this course. Course-kan waanu dhamaynay annagu next year. Sanadka soo socda waanu dhamaystirnayba course-kan. Tusaale imika grammar baynu dhiganaynaa oo ah course, maadaama oo course grammar aad dhiganayso sida aad rajaynayso insha Allah sanadka soo socda waad dhamaystirtay. Marka waad ka sii hadlaysaa. They will have completed the project before the deadline. They will have completed way dhamaystiran the project mashruuca before the deadline. Kama dambaysta inta la gaarin mashruuca way dhamaystireen. He will have reached in England by tomorrow. He will have reached in England by tomorrow. He will have reached wuu gaadhay in England wadanka England by tomorrow. Bari wuu gaadhay England. She will have cooked the dinner before it gets dark. She will have cooked the dinner before it gets dark. Way dhamaystirtay, way karisay cashada inta aanay madowba noqonin, aan madowba la gaarin. Xilli hore ayay markaa dhamaystirtay ay ka dhigan tahay. It will have returned home by 6 o'clock. It will have returned home. Way ku soo noqotay guriga, way ku soo laabatay by 6 o'clock. 6da marka ay 6da tahay way ku soo laabatay guriga. Marka waa iska wax hadee suuraysanayso oo buu noqonayaa tusaaluhu. Negative form, qaabkii diidmada ahaa. Qaabka diidmada qaacidadiisi waa satan subject plus will, shall plus not plus have plus past participle plus object. Okay, tusaalaha koobaad, I will not have finished my work by June. Ma aan dhamaynin anigu shaqadayda bisha June marka la gaaro. Haddaba maxaa isbedel ku yimi isweydii? Kaliya not ayaa ku timi oo will iyo have u dhaxaysa. Not ha daba marinin oo ha marinin have horaanteeda, hana daba marinin will. Okay,
tusaale xiga you will not have played it tomorrow. You will not have played it tomorrow. Bari maad ciyaarin. We shall not have finished this course next year. Course-kan ma aan dhamaynin oo ma noqonayno kuwa dhameeya sanadka soo socda. They will not have completed the project before the deadline. They will not have completed ma ay dhamaystirayaan the project mashruuca before the deadline ka hor kama dhamaysta xilligeeda inta aan la gaadhin. He will not have reached in England by tomorrow. He will not have reached ma u gaadhin mana gaadhayo in England wadanka England by tomorrow bari. She will not have cooked the dinner before it gets dark. She will not have cooked ma ay karinin iyadu ma karin doonto the dinner cashada before it gets dark inta aanay noqonin mugdi. It will not have returned home by 6 o'clock. Kuma soo noqonayso oo ma noqonayso mid kusoo noqotay guriga by 6 o'clock 6 saac marka ay tahay. Interrogative form will shall plus subject plus have plus past participle plus subject. Tusaalaha koobaad will I have finished my work by June. Miyaan dhamaystiray shaqadayda oo mid ii dhamaatay ay tahay bisha June. Okay. haddaba halkan maxaa isbedel ku yimi? Isbedel waxa ku yimi kaliya will oo la soo horeysiiyay markii ay affirmative form ka ahayd ama qaabkii caadiga ahaa. Isbedelka ku yimi ee hadda halkan kaaga muuqda waa will oo kaliya ayaa la soo horeysiiyay. Okay, tusaale xiga aynu ku sii socono. Will you have played it tomorrow? Miyaad barito ciyaartay ama aad noqonaysaa mid ciyaaray. Shall we have finished this course next year? Course-kan miyaanu dhamaynay sanadka soo socda. haddaba waxaa dhib idinku yar keenaya shall oo aad run ahaantii dhibsanaysaan ama la yaabantiin sababta u timi. Shall waxa loo isticmaalaa ay subjectiga ayga amaba we ayaa loo isticmaalaa. haddii aad will ka dhigtidna dhib male, haddii aad shall isticmaashidna dhib male, laakiin badanaa shall ayaa loo isticmaalaa. Okay, aynu kusii soconno tusaalaha xiga. Will they have completed the project before the deadline? Will they have completed miyay yihiin amaba noqonayaan kuwa dhamaystiray project ama mashruuca waqtiga kama dambaysta. Will he have reached in England by tomorrow? Miyuu noqonayaa mid gaadhay berito England. Will she have cooked the dinner before it gets dark? Will she have cooked miyay noqonaysaa mid karisay the dinner cashada before it gets dark hor inta aanay mugdi noqon. Will it have returned home by 6 o'clock? miyay guriga kusoo noqonaysaa oo noqonaysaa mid kusoo noqotay 6 saac. Okay, aynu kusii soconno inagoo halkaa u gelaynaa qaabkii ahaa qaabka short examka. Short exam change into ubedel another form. qaab kale. The passengers will have reached Hargeysa tomorrow. The passengers dadka rakaabka will have reached way gaadheen Hargeysa by tomorrow. Shall we have solved the problem next week? Shall we have solved miyaanu noqon doonaa kuwa xaliyay the problem dhibaatada next week weeka soo socda. Change into affirmative u bedel qaab weer caadi ah. They will have prepared the document by next Saturday. They will have prepared waxa ay noqonayaan kuwa diyaariyay dhamaystiray the documentiga by next Saturday sabtida soo socda. Change into interrogative u bedel qaab su'aaleeda. halkaa ayuu cashirku inoogu joogayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.